Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelkayga. Channelkana waxaa lagu bartaa luuqada Englishka. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay when to use or and is in a sentence. Xilliyada la isticmaalo ereyga or and is. Tusaale ahaan, my name is Hawa. Magacaygu waa Hawo. So marka kaligaa iska hadlayso amba hal qof ka hadlayso waxa waaye is. Next, they are my family. Ayagu waa qoyskayga. Markaad jamac ahaan qof dad badan ka hadlayso waxay isku bedelee oo. Next, this is my house. This is my house. Kan waa anigu gurigayga. So hadda adiga iska hadlo hal qof ayaa taha is. Next, they are playing outside. They are playing outside. Again, mar kale hal qof ma ahan markaan waa dad badan. They hadday soo gasho oo isku bedele sababto asxaab ayaa la hadlo waa group dhan. They are playing outside. Ayagu waxay ku ciyaarayaan banaanka. Playing ciyaar, outside banaanka. They are very happy. They are very happy. Ayagu waa aad ay u faraxsan yihiin. Ayagu aad ayay u faraxsan yihiin. Haddana they ayaa soo gashay. Waxaa isticmaalaynaa are very happy. Next, number 6. She is a doctor. She is a doctor. She waa hal qof. She is a doctor. Ayadu waa doctor. Number 7. The students are studying for exams. Ilmaha waxay isku diyaariyaan imtixaanka. Casharada imtixaanka ayay isku diyaariyaan. So or ayaa soo gelinayna markaan they are. Sababtoo ah students s hadday soo gasho hal arday lagama hadlo ardayo badan. Number 8. This is my car. This is my car. Kan waa anigu gaarigay. So hal qof waaye is, not are. There are 2 boys and 3 girls in a class. There are 2 boys and
3 girls in class. Classka waxaa ku jiro 2 wiil iyo 3 gabdho. So meesha is inta ku qor lahayn ayaa leenahay sababtoo waxaan ka hadloonaa as group dhan, not just one. They are my siblings. They are my siblings. Ayagu waa walaalahay. oo ayaa qorina cause walaalo waxa waaye hal way ka badan tahay. is haddee soo galayso waxay isku bedelee oo. So waxaan rajeynaa inaad fahanteen cashirkan intaas ayuu ku egyahay. cashir kale u gudbina. So wax yar ayaan sharxaa intaan kale u gudbin. When to use or and is. Or waxaa la isticmaalaa markii dad badan ka hadlayso, not just hal qof. Hal qof markaa ka hadlayso, tusaale ahaan my name is Hawa. Kaligaa iska hadlaysaa, saas daraateed is ayaa leedahay, not or. Number 2, they are my family. Family marka waa dad badan, saas daraateed. Casharkeena labaad waxaan ka hadlaynaa silent letters in words. Erayo oo silent ah baa jiro. Xarafka markaa ku dhawaaqayso erayga laakiin waa qori, laakiin markaa ku dhawaaqayso meesha inuu oolin ayaa kasoo qaaday. Tusaale ahaan knife. Kayda waa silent. Kayda ma ku dhawaaqaysid silent waaye, meesha inuu oolin ayaa kasoo qaaday. Laakiin markaa qorayso waa qasab kayda inaa qorto. Okay. Knife waxaa laga wadaa mindi. Number 2, island. Esta waa silent. Esta ma ku dhawaaqaysid. Haddaad tiraa is land waa qalad. Island. Esta inaa meesha oolin ayaa kasoo qaaday markaa ku dhawaaqayso, laakiin markaa qorayso waa qasab inaa qorta. Island waxaa laga wadaa dhul. Island waxaa laga wadaa dhul oo biyaha ku wareegsan tahay. For example, wadanka Australia island waaye. Number 3, answer. Answer waxaa laga wadaa jawaab. Answer marka W-da waa silent. W ma ku dhawaaqaysid, silent waaye. Answer. Next, number 4, basket. Waxaa laga wadaa buskut. U-da silent waaye. Basket. Number 5, age. Age waxaa waaye qofka da'diisa. E waa silent. Age. E-da waa silent. Number 6, talk. Talk waxaa waaye hadalka. L waa silent. Talk. Aisle. Aisle marka waxaa laga wadaa dariiq. Wadada dariiq amba xaafada dariiqa ku yaalo meesha la mari karo. Aisle. Esta waa silent. Esta ma lagu dhawaaqaayo. Aisle. Number 8, accent. Accent marka esta waa silent. Accent waxaa laga wadaa lahjada, qofka lahjada ku hadlo. Accent. Number 9, bridge. Bridge waxaa laga wadaa buundada la maraayo. D-da of bridge waa silent. Next, number 10, receipt marka
P-da waa silent. Receipt waxaa laga wadaa warqada lagu siiyo marka dukaamanka wax kasoo gadato, warqad caddeyn inaa waxa gadatay. Receipt. Xarafka sida loo qoro mar walba laguma dhawaaqo. Xarafyo waxaad arkaysaa, for example knife. Knife qofka ugu horeeyo English baranayo knife ayuu leeyahay. Knife-na ma ahan. Kayda waa lasaga qormaane knife. In ayaa ka bilaaban knife. Cashirkan intaas ku eegyahay, waxaan rajeynaa inaa maanta wax badan iga faa'iideen. Waxaa inoo balan cashirka xigo.